waddanka Hindiya magaalada Bombay la yiraahdo qiso cajiib ah ka dhacday bari nin ducaada reer Bombay baa noo sheegay nin Hinduus oo gaal oo mushrika oo waddanka Hindiya u dhashay laakiin Australia ku nool ayaa ninkan muslimka ganacsadaha xiriir baa ka dhaxeeyo badeecada uu ka iibsan jiray marmar maraakiibtu u saari jiray badeecad baa jiray Hindiya laga helo Australia aan laga helin badeecadahaas markaa intuu ka soo dalbado ayuu lacagtana banka ugu soo shubi jiray isaguna ama cargo diyaarad buu u saari jiray ama container marka buu u saari jiray ninkii maalqabeenka ahaa ee Australia ahaa ee Hindiga gaalka ahaa isagii inantiisii oo jaamiciyada iyo islaantiisii baa Bombay yimid ninkii taajirka ee muslimka ee markaa la kulmeen markaas badeecad buu iibsaday wuxuu yiri badeecadan tan adaan ka iibsaday ii soo saar diyaaradda cargo-ga lacagtina waa tan alaabtana aniga gaar meel kale uga soo iibsaday iigu darbu ka yiri markaas uu yiri waayadan qaraxyo iyo adduunka waa la cabsoodaa oo qof walba waxa diyaaradda u saaray uu iska eega badeecadan aniga adiga soo iibsatay de ana ka iibiyo waan garano ana u qoolan wixii ka yimaada laakiin tan adaa ilaa yimid maxaa ku jira ii sheeg markaas uu yiri wax kale kuma jiraan ilaahan caabudaya ku jiro halkan ka iibsaday buu yiri waa sanad yar oo san dheer oo gacmo badan oo Hindiya ay ku dhaxsanayaan oo lacag lagu iibiyo oo fara badan markaas uu yiri culimada idaan soo weydiin in shariicadaydu ii saamaxayso in kale taajir markuu muslim yahay oo iimaan leeyahay tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa ilaahay macrifadiisa tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa maaragtaana inuu shariicada islaamka ku dhaqmo maxaa banaanayn maxay shariicadu banaanaysay maxaase ii banaanayn wuu soo noqday wuxuu yiri waxay culimadaydu igu yiraahdeen ma banaano haddaad u qaadid gaalnimadiisii baad ku caawisay waa khatar mana banaano shariicada islaamka ma ogolo waana xadiis saxiix oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam uu sheegay uu yaabay ninkii war inta oo sanaan saaxiiba ahayno wada mucaamaloonay maxaad igu qaadi weyday ma qaadayo wax kale aniga wax kale oo xalaal ah hadaad ii keento waan ku saaray diyaaradda laakiin kan ma qaadayo diinteedana ii saamaxayna ku qaado gabadhiisiiba marka inantii uu dhalay baa fikiraysa waa gabadh jaamiciyada habeenkii iyadii aabaheedii hooyadeed hoteelkii markay degeen ay tageen ayay tiri aabo ninkan muslimka inta oo sanad la mucaamaloonaysi muxuu inoogu qaadi waayay bay tiri ilaahayna aabo waa diintiisa ogolayna naga daabuudi aaba raay baan ka qabaa bay tiri halka raay baan ka leeyahay raaygaan ka leeyahay waxa weeyaan bahalkan aan iibsanay marka koobaad isagii intuu socdo Australia tagi kari maayo ma socon kara laba lacag iska bixin kari maayo diyaaradda kursi fadhiisan kari maayo saddex adigii waxaad iga dhaadhicisay oo hooyaday ka dhaadhicisay oo adiga ka dhaadhicsanna baahideena kana daboolaya markay dhibaatana qabatay xambarino waxay tiri ani arintaas maskaxdeeda ma galeysay tiri war kale keen فكرت لكن مسلم كيف التلفون كيس قبضتي ولا هذا الشيء وحيت بريت ولا انكم اركان دونيا وايو وين انت ودق عين كاس او دلي ويانا ما انت كوتمد يا ابيه لا سعودي اي كان مالبو marka ku martay qaaday markay u timaday wuxuu marka islaantiisii buu soo kaxaystay oo xijaaban oo gabadh mutadayinada markaas uu soo gashay hoteelkii halka gabadhii fadhiisatay waxay tiri anu adigan kula ballamay ruuxan kale kula fadhida maxay tahay wuxuu yiri ruuxan kale waa xaaskaygii diinteeda islaamku ima ogolaanayso inaan adiga kula kaliyoobo limaada waan ku geeyay adiga mahram badita mahram imatid mahram badu baahanta nabi maxamed baa yiri ninna naaga ajaaniba inuu san la kaliyoobin illa mahramkayga la jooga mooyaane alayhi salatu wasalaam taana horta qacbay ku tiri qalbigeedii leedin bal ya meesha taale waxay tiri su'aal baan ku weydiinayaa diintaadu adiga waa maxay waa islaam iyaad aaminsan tahay sheeg Allah bana aaminsanay la tudrikuhu al-absar wa huwa
yudriku al-absaar kaciirka abuuray dhulka abuuray marka halkii fursad waxay u noqotay inuu ninkii gabadhii dacwada siiyo inay iyadii halkii ku islaamto inay hoteelkii ku noqoto inay hooyadeedii aabaheed ay ka dhaadhicisay diinta islaamka oo labadii waalidoo da'waa weyn ay ku qancaan inay diinta islaamka soo galaan hidaayada marka ayaa hay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi quraysh adeer anu kelmad baan la rabaa inay mar keliya ii yidhaahdaan hadday kelmadda ay yidhaahdaanna hee carab oo dhanna madax bay u noqonayaan cajab oo dhanna jizyadday ka qaadayaan kelmaddaasi waa maxay waa laa ilaaha ila allah abaa jahal baa sare kaco wuxuu yidhi ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina haada la shayun cujaab 360 ilaahoon caabudaynay ayaa baahidayadii dabooli kari le maxamed ma waxa uu leeyahay mid keliya caabuda waar inaga kiciya buu yidhi meesha ilaahyadeena cibaadadoodana ha ku sabirne muraadka maxamed uu ka leeyahay diintiisan ku daynayo ka hadhaya maaha ina naga mariya bay yidhahdeen markay ka dareereen ayuu nebigu sal alla alay wasalam isagii adeerkii baa isku soo hadhay markaasuu abu aalib ayaa yidhi adeer hadal xunba kumaad odhana waa sidee ma intaabay ka didayaan markaasuu yidhi adeer adigu kelmaddaa mar ii dha buu yidhi qiyaamahan ku markhaati fure hal marun adigu ii dha buu yidhi kelmaddaas maalin kasti waa u bandhigaya adeerkii dacwadda sakaraadkii markuu qabtay ayaa la yidhi adeerka abaa aalib baa xanuunsan oo jiifa oo dhacay markaa buu nebigu iskur taagay calayhi salaatu wasalaam kolkuu u soo galay abu aalib wuxuu arkay dhinaca waxaa ka fadhiyaba abu jahl yaa uga soo horreeyey abu jahl baa uga soo horreeyey siraac xaqa iyo baadilka waa isgarab socdaana la socdo markaa buu nebigu u dhowaaday adeerkii cammi adeer hee kalimatan uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha han kuu markhaati fure oo han kuu shafeecad qaade hal marun kelmadda anigay maqashii buu ka yidhi laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah sal alla alay wasalam markaasuu eegay abu jahl buu eegay abaa jahl baa ku yidhi atargabu can millati cabdilmualib biabaa aalib ma milladii cabdilmualib baad maanta ka weecanaysaa diintii awowyaasheen intood ka tagto diintan cusub ee maxamed uu la yimiday miyaad rumaynaysaa ood raacaysaa u aamusay haddana nebigaa soo erjiidiyey sal lla alay slam adeer kelmaddaa mar labaad iigu celi buu ka yidhi mar labaad haddana u aamusay haddana abu jahl baa soo jeediyey markii u dambaysay abu aalib wuxuu yidhi calaa millati cabdilmualib baan ku dhintay maxamed oo iska kaydaa buu ka yidhi إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت كذا ذيك جعلاتي بالنبي قال له يدي ما هذين كريس دلالة هذا ولاده الدلالة هداية هذا ولاده وحويان inaad dadka khayrka aad ugu yeedhid inaad kelmadda u bandhigtid inaad u nasteexaysid inaad u damqatid inaad diinta u sheegtid waa shaqadaada adiga weeyaan laakiin quluubtooda annaka hayna baa ilaahay leeyahay kaan doona qalbigiisa annaka nuurka iyo hidaayadda qalbigiisa gelinayna kaad jeclaato adigu ma hadaynaysid marka abu aalib oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam adeerkiiyana hidaayadda nasiib umuusan yeelin salmaan oo farisiina ilaahay waa soo hadeeyey abulahab oo nebi maxamed adeerkii la xamiyana hidaayadda nasiib umuu yeelan bilaal alxabashina ilaahay tabaaraka wa tacaala waa soo hadeeyey yahdi man yashaa kuu doona ilaahay isaga hadeeye kuu doona marka ilaahay asmaadiisa waxaa ka mid ah alhaadi hanuuniye alxaafid waa asmaada ilaahay ilaaliye isagaa ku ilaalin siduu doonuu kugu ilaalin meeshuu doonuu kugu ilaalin goortuu doonuu ku ilaalin bilaa asbaab
سقالي سقاشة كان مقع إلهي النبي محمد يري مقع ذا ونكسن إلهي وليه كو الله بريو باهدين كو يديس تبع علمد لين سقالي سقاشة كان مقع به مقع والبا معنى قوني وحنبار سنيح مقع والبا معنى قوني أيو حنبار سنيح